السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسلaamantiin saaxiibayaal meel kasta joogtaan iyo si walbo muuqaalkan oo idiin soo gaarayo. halkani waa shabakada Samdimi, magacayga waa Cabdibaas Xasan Nuur, waxaan ahay aasaasaha akademiyada. waxaa horey nagu socday koorskeeni aan ku barninay computer asset accounting-ka, gaar ahaan software-ka loo yaqaano QuickBooks-ka. maanta cashirkeena 14aad ee koorska waxaan qaadan doonaa sidee baa u bixin lahayd biilskaaga. biilis macnaheedu waxaa waaye yani diin adiga lagu leeyahay sidee baa iskaga dhiibi lahayd. cashirkii ka horeeyay waxaan kusoo barnay sidee baa u abuuri lahayd customers, sidoo kale dad u diiwaangelin lahayd haddii uu lacag kugu leeyahay. maantana waxaan barnaynaa sidee baa u bixin lahayd lacagtaas lagu leeyahay. marka kusoo dhawaada cashirkeena 14aad. markii uu sidan noogu soo furmo kambanigeyna waxaa tegaysaa taabkii qoran tahay vendors, kadibna waxaa sii dooran doontaa qoran tahay pay bills. sidoo kale waxaa u dooran kartaa inaad inta iska dhaafto ama meeshan qoran tahay pay bills ku dhafato, waa isla midkii meeshan ayuu ku keenayaa. anaga hadeertaan hal vendor ayaa lacag nagu leh. okay, vendorkaasina waxaa la kaamil computers, wuxuu nagu leeyahay lacag $10 nagu leeyahay. haddii uu lacagta dhan aan siinayno meeshaan aad tigta saarayna. okay, sidoo kale haddii aan $10 ay siinaynin oo lacag $5 camal aan siinayna, meeshaan aad qoraysaa lacagta aad siinaysa. okay, markaa meeshaan lacagta aad siinaysa ay gelisid, halkaani waxaa kasii dooranaysaa akoonka lacagta ka bixinaysid. okay, anaga tusaalahaan waxaan leenahay Salaam Bank oo kale toda ka bixinayna. okay, Salaam Bank markaa ka bixisa meeshaan waxaa gelinaysaa taariikhda ay gelinaysaa. okay, intaanan pay bills aan dhihin waxaan rabaa inaan soo reportskeena reports company and financial kadib balance sheet. waxaa rabaa meesha saameynaya sida intu saarwa meeshaan haddii hoos aan usoo degno, meeshaan waxaa ujeedaa in akoon biiba lacag $10 in lagu leeyahay. sidoo kale akoonkeena Salaam Bank ama Dahabshiil midkaa ka bixin doona midkoo noqonayo $5 meeshaan go'i doon, sababta waxay tahay lacag ayaa dhiibaynaa. okay, sidoo kale meeshaan akoon biiba $10 oo lagu leeyahay hadaa $5 aad dhiibno way yaraanaysaa $5 noqon doontaa. sidoo kale vendor hadaa ku dhufano vendor center ku dhufano, meeshaan kaamil computers $10 ay u qoran tahay way yaraan doontaa oo waxay noqon doontaa $5 noqon doontaa. intaasoo saameyn ayuu yeelan doonaa. iska xir kan iska sii xir. meeshaan qoran tahay pay selected bills ku dhufanaysaa. okay, hadeertaan wuu noo diiwaangeliyey. iska xir shaashada yarista reportskeena aan tuso company and financial kadib balance sheet ku dhufo. okay, waxaa ujeedaa meeshaan Salaam Bank inay ka koodo $5 ka koodo, isla waxay ku jirto $130. sidoo kale hoos sii socoto meesha ay qoran tahay account payable, waa ujeedaa inay ku jirto $5, sababtoo ah $10 aan ugu lahay $5 iska dhibnay. sidoo kale haddii aan vendor aan ku dhifano oo vendor balance aan fiirno vendor center ku sii dhifano, waa ujeedaa meeshaan kaamil computers wuxuu nagu leeyahay $5 oo keliya. waxaan rajeynayaa cashirkeena 14 inaad fahanteen. wuxuu ahay cashir runtii aad iyo aad u gaaban laakiinse aad iyo aad muhiim u ah. fadlan haddii aad muuqaalkaa dhamaysatay, waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalkan aad like saarto. waa Cabdibaas Xasan Nuur oo idin leh adoo dhaxal reebi kara waa noqon dhinta ala tabin. subxaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun cala al mursaliina walxamdu lilaahi rabbil caalamiin.